gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waa moota ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalninkii Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab waxay komishanka doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland leeyihiin awood sharci oo ay ku hagaan hanaanka iyo waqtiga qabashada doorashooyinka golayaasha baarlamaanka deegaanada ururada siyaasadda iyo xisbiyada qaranku ay ugu tartamayaan hogaaminta dalka waana hawl ay kaligood u idmay sharciga ay ku dhisan yihiin mana jirto cid kale oo ku lug leh awood faragelineed iyaga ayaanay saaran tahay mas'uuliyadda koowaad ee daahfurnaanta doorashooyinku hase yeeshee sidii uu horeba u sheegay gudoomiyaha komishanka doorashooyinku toddobaadkii hore iyaga ayaa awood sharci u haysta inay cayimaan waqtiga iyo qabashada doorashooyinka inagu soo foolkale balse haddana waxa lama huraan in guddiga doorashooyinku ay la tashiyo dhinacyo badan la yeeshaan cid kastoo ay khusayso oo ay ugu horeeyaan ururada siyaasadda saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo daneeyayaasha kale ee arrimaha doorashooyinka ku lugta leh waxyaabaha murgiya xilliyada ay doorashooyinku soo foolka yeeshaan waxa kow ka in madaxda uu ka dhaxeeyo loolanka loogu jiro tartanka hogaaminta dalka oo mid waliba taageerayaashiisa ugu sheego fagaarayaasha siyaasadda hadba dariiqa uu arko inuu ku gaari karo damiciisa siyaasadeed isagoo si aan waafaqsanayn shuruucda iyo xeerarka dalka ugu shuba shucuubta iyo maskaxda taageerayaashiisa si uu hadhow ugu jiheeyo haddii ay soo saaraan hay'adaha sharciga u leh hagista doorashooyinku wax ka duwan dariiqii uu sii jeexay ee uu ka dhaadhiciyay bulshada taageersan maanta dalkeena waxa lagu soo qaaday dagaal badheer ah oo hubaysan iyo mid siyaasadeed oo la damacsan yahay in lagu kala daadiyo qarannimada iyo jiritaanka dowladnimo ee aan soo dhisaynay muddada dhowr iyo 30 sannadood ah soona gaarsiinay meel caalamka intooda la socota arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ay nagu amaanaan marka laga eego dhinacyada amniga xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda sida awgeed waxa loo baahan yahay si aan halkaasi uga sii socono in doorashooyinku aan u galo si aan naxligu jirin isla markaana aan daafacno dalkeena duulaanka lagu soo qaaday taas oo loo baahan yahay inaan muujino wadajir iyo isku duubni aan ku adkaynayno xasiloonida iyo nabadgelyada aynu haysano si aanu cadowgu inoogu helin galdalolooyin oo inooga soo gudbo sidoo kalena waa inay bulshada reer Soomaaliland yeeshaan aragti ka fog arrimaha gudaha oo xambaarsan aragti midaysan oo qabashada doorashooyinka iyo mid ku wajahan kuwa hariya habeen ku taamaya burburinta jiritaanka qarannimada Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland ee ku nool daafaha dunida waxaan u soo jeedinaynaa inay u midoobaan cid kasta oo ay ku xoojin karaan wadaniyada iyo midnimada shacbiga reer Soomaaliland sidoo kalena ka waariyaan inta ku fogan baraha bulshada ee markasta ka sii baahiya barahooda weeraha isku dirka iyo kicinta ee ku wajahan bulshada gudaha ee reer Soomaaliland isla markaana ay ku bedelaan hadallo waxtar u leh dadka iyo wadajirka iyo sidoo kale difaaca dalka maadaama aanay maanta ahayn maalintii aynu gudaheena isfarfari lahayn ama aynu doorasho isku jijiidan lahayn intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab waxaan idila socotiinaya anigoo Saaxiib Cabdi Goole